Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhamaan asxaabta soo dhawaada maanta waxaa jeclaystay inaan idinla wadaago feature cusub oo lagu soo kordhiyay WhatsApp-ka dad badanna aysan ogeyn kaasoo ah language translate. Marka hore WhatsApp-ka soo kicinayna hadda kadib uma baahan doono inaan Google Translate ka isticmaalno. Kadib qofka aad rabtid inaad la sheekaystid aad taabanaysaa. Markaad taabatid meesha qoraalka lagu qoro taabanaysaa. Marka inta samaysid waxaa ka dooranaysaa meeshaan icon-kan eeda ay ku dhex qoran tahay oo translate-ka inta badan loo isticmaalo. asaa dhagsiinaysaa markaa dhagsiisid markaa koowaad hadee tahay agree aa leedahay markaa intaa samaysid meeshaan waxaa kasii dooranaysaa ay ku qoranta en waxaa arki karnaa marka hadda luqadda koowaad inay naga tahay auto waxaa taabanaysaa marka luqadda aad rabtid inaad ku beddelto tusaale ahaan inaad Soomaali oo kale ku beddeshay hadda waxaa arki karnaa marka in Soomaali iyo English labadaba mataqaanaa la isku beddeli karo markaa kala beddelaysa luqadahan waxaa taabanaysaa labadan falaar isdhaafka ah marka hadda Soomaaliga hadda soo horumarsado kale Soomaali hadaa qoro wiil oo kale hadaa qoro waxaa arki karnaa inuu boy iyo qoraayo qaybta translate-ka tusaale ahaan oo kale subax wanaagsan hadaa qoro subax wanaagsan markaa saas u qoro waxaa arki karnaa inuu noo qore good morning dhag qofku waa u diraysaa markuu asaga wax kugu soo dirana qoraalkiisa intaa riixdid kadibna saddexdan dhibcood dhag aa ku siisid koobi leeda qoraalkiisa markaa koobiyeysatid hadda tan English waaye Englishka hore soo marinaa kadib bastia ku leeyahay waxaa arki karaa marka inuu subax wanaagsan ay tahay kadib waa iska tirtiraysaa luqadaada hooyo iska soo hormarsanaysaa ama luqadda markaas aad rabtid inaad wax ku qortid tusaale ahaan hadda wiil oo kale marka hadaa ku celino sidii oo kale kuugu beddelaya waa u diri kartaa qofka haddii luqadda marka Ingiriiska aad rabin Carabi aad rabtid oo kale Arabic aad ka dooranaysaa meeshaas walad uu ka dhigay waa ujeednaa marka qofka hadaa rabtid waa u diraysaa hadaa rabtid inaad qaybtan translate-ka iska xirtidna icon-ka hadaa marka hore aad taabanaysaa intaas jeclaysta maanta inaan idinla wadaago waana mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh